shalay galinkii dambe ayay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wafdi balaaran uu hogaaminayay ay gaareen magaalada Riyaad ee caasimadda waddanka Sacuudi Carabiya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud waxa socdaalkiisa ku wehelinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxaana ka mid ahaa wasiiradan la socda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa casuumad heer caalami ah ka helay boqor Salmaanka waddanka Sacuudi Carabiya. madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo iyo boqor Salmaanka dalka Sacuudi Carabiya ayaa la filayay ka hadlaan waxyaabo badan oo ku saabsan ammaanka, dhaqaalaha iyo horumarinta sidii loo taageeri lahaa dawladda federaalka Soomaaliya ee hadda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud. safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Riyaad ee waddanka Sacuudi Carabiya Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka warbixiyay socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya u gaaray magaalada Riyaad ee caasimadda waddanka Sacuudi Carabiya. meelo badan oo dunida islaamka gaaray sida dhibaatooyinka bixisada iyo amaan darrada iyo dunida dawladuhu ay dumayaan arrinkaasna Soomaaliya iyo xalka Sacuudi Carabiya arrin aad iyo aad maaragtay xiisaynayaan waayo gaar ahaan waxyaabaha ka soo dalka Yemen oo marna Sacuudi Carabiya kuwaas aadan xiriir bani'aadamnimo iyo isdhexgal ay leeyihiin dhanka Soomaaliya ay ka saaran tahay oo xiriir bani'aadamnimo iyo xiriir soo jireen ay leeyihiin xanuunka ka jira Yemen ka jira qaybo ka mid ah Soomaaliya ku fiday kuna fiday amba noqoto madaxweynaha waxa uu la kulmi doonaa boqorka dalkan iyo madaxda sarsare boqortooyada Sacuudi Carabiya. dhanka kale wasiirada la socdana waxa ay la kulmi doonaan dadka dhigooda ah wasiirada ku aadan ay la kulmi doonaan markaas kulamo maanta bilaaban doona ay yeelanayaan haddii ilaahay dowladda Sacuudiga saad la socotaan waxyaabo badan oo aad iyo aad u ballaaran ay Soomaaliya ku taageerta waxaa ugu horeeya waa dalka ugu weyn ilaa iyo hadda dalka qaata waxyaabaha Soomaaliya u dhoofiso waxyaabaha lafdhabar ku ah sida xoolaha nool 5 milyan oo neef ay Soomaaliya dhoofiyeen dalka Sacuudiga xooggan soo aadan shaqaale xooggan ayaa ka jira shaqaalahaas hadda waxaa la isla go'aamiyay oo la isla gartay shaqaale cusub in Sacuudiga ay ka qaataan Soomaaliya. dhanka kale Soomaaliya taageeraya ka shacabka bani'aadamnimo ha noqdo ama fagaarayaasha caalamiga ah oo qadiidaha Soomaaliya Sacuudiga ay ka taageeraan ha noqoto arrinkan arrin Sacuudiga ugu soo jeedo oo la isku soo jeedo waayo wax laga wada qabso guud ahaan dadkan dawladda islaamka ku fiday oo dhulka bixisada ah wixii qoonda iyo wixii wax isla qabashaan hadda waxa gobosha ay fidsan tahay maanta in la isla qaado dhigo. wafdigan hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa la filayay in safarkooda uu qaato muddo 2 maalin waxayna kala hadli doonaan madaxda dalka Sacuudi Carabiya sidii loo taageeri lahaa ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dagaal culus kula jira xarakada Al-Shabaab ee weli ka dagaalanta deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa la filayay in kala hadlaan madaxda dalka Sacuudi Carabiya arrimo ay ka mid tahay dhaqaalaha iyadoo waddanka Sacuudi Carabiya oo kaalinta koowaad uga jiro wadamada ay Soomaaliya u dhoof geysato xoolaha nool. waxaana la filayaa in shirkan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la qaadanayo boqor Salmaanka dalka Sacuudi Carabiya ayaa la filayaa in wax weyn ka soo baxaan waxtarna u leh ummadda Soomaaliyeed.